soo gaarahaya waddanka Soomaaliya taasi oo sharaxaya in shacabka Soomaaliyeed ay gabi ahaanba ka soo horjeesteen inay wax canshuur ku bixiyaan dowladda ama rajiimka uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo ku sameeyay dadka Soomaaliyeed khiyaanooyin aad u waaweyn oo haddii cadaalad ka jir lahayd Afrika ama Soomaaliya waddan ka mid ah Afrikada lagu soo toog lahaa dacwadaasi maxkamad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin inkastoo isla xisaabtankii haatan uu jirin Soomaaliya una imaan doono ayaa shacabka Muqdisho waxay go'aan ku gaareen inta awoodoodu tahay in ay joojiyaan canshuur laga qaado dadkuna ay banaanbaxaya arrinta ka muujinayaan iyadoo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo rajiimkiisa sii dhacaya aysan wax taageero ah ama wax dulqaada aysan u haynin dadka magaalada Muqdisho qaasatan ku nool ayaa waxay sheegayaan in aysan jirin wadooyin ay maraan wadada kaliya ee furan ee Turkiga ay dhiseen ee laamigana ay tahay lambar 4 ilaa Soobe wadooyinka taga laakiin intii kale magaalada xataa gaadiidku aysan mari karin xataa baabuurta aysan mari karin PL-da ah iska bajaajkii bayba dib ku tahay dadka magaalada Muqdisho waxay abaabulayaan banaanbaxyo maalmaha soo socda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo looga soo horjeedo haddaba shacabka ayaa taageeradooda haatan waxay u sii badanaysaa dhanka iyo madasha xisbiyada qaranka ee hoggaanka ka yahay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed wixii warara ee banaanbaxyadaas ku soo kordha la abaabulahayana dib baan kala soo socodsiinaynaa halkaani waa Shaariba Show haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe ka saaro wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu